أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وحين إن شاء الله تعالى كلمة كوبان كورن دونا وحيابها محرمات كأه هذا موقضة dadku ay sahlanayaan muharramaatun istahana biha an-nas muharramaat waxyaabo xaraana oo dadku ay aad u sahlanayaan oo maanta waaqiceen aad uga muuqata waa la socotaan ayaamahan oolayaashii xisbiyada ee doorashada ayaa socota dadku inay wax doortaan oo dad madaxa doortaan hadal kama jiro in la baratamo oo ummadu ay maamulka iyo xukunka ay u baratanto oo cidii markaa munaasib ay soo baxdo waxay la tahay taasi hadda ka hadal ma laha laakiin waxaad moodaa sida wax loo dhigayo ama loo wado in macnuhu yahay qofku haddii aanu xaaraan soo walaaqan oo waddada loo maraya aan munkaraad iyo lagu soo tuman inaan xukunba la gaari karaynin macna noocaasaad moodaa inay ka muuqato dadka sababtoo ah ololaha socda macaasi baa ka dhex muuqata aad u khatara oo aan laga aamusi karaynin ay kow ka tahay heesaha iyo muusiga mikrofoonada waaweyn inta baabuurta la saaray magaalada la dhex marinayo oo meel kasta maraya iyadoo kaloono xidhiidha ah oo goobihii waxbarashada khalkhal gelisay oo jaamicaadka iyo macaahidda iyo madaaristii iyadoo waxbarashadii lagu jiro heestaas dumdamtaas ay ku soo ag marayso oo dhalinyartii iyo ardaydii ay ku jeesanayso oo khalkhal geynaysa dadka cusbitaallada ku jira xanuunsanaya oo dad badan oo iska dhibaataysan ba iska jirayo codkaasi dhibayo munkarka noocaasa oo aad la isaga fudaydsanayo ayaa maanta waaqiceena ka muuqda wuu u baahan yahay in wax laga yidhaahdo waxaa kale oo muuqato oo khatar ah oo iyana tahay inay ka sii daran tahay mooyaane aan ka sahlanayn ama ka sii khatarsanba waa ikhtilaadka ragga iyo dumarka isdhex boodaya ee baabuurta lagu daldalayo ee gabdhaha iyo wiilasha da'yarta ah 15 jirada ah 20 jirada ah ee baabuurta dhexdeeda shirarka iskula jira ee aan maxaarimta isu ahayn ee damanta isla saaran ee gurada gaariga isla fuushan ee saa u socda ee magaalada dhex marinayo waxyaaba qaraa'ibka ah ummada islaama in arrimaha noocaas ka dhex muuqdaan oo hawshaas ay maalin kasta muuqanayso inta oodaan socdo waa arrimaha waaweyn ee munkaraadka ah oo u baahan wax laga yidhaahdo waxaynu isleenahay bal intaynan wax ka odhan waxaa muhiima in la taabto waxyaabaha nicamta aynu haysanno ee bulshadan ay ku dhegantahay wanaagsan ma u baahan tahay arrimahaas in la ilaaliyo oo la ixtifaado oo la dhowrsado mise uma baahna ummaddu waa ummad islaama islaamnimadu waa nicmo weyn oo cadiim ah oo dad badan baan ilaahay islaamnimo siina gaalnimo ku dhimanaya oo naar geliya in ilaahay islaamkaa dhigay oo aad diinta haysato waa nicmo weyn oo u baahan in la ilaaliyo allah wuxuu leeyahay markuu ka hadlayey nimankii quraysheed ee diiday nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aankii waxyiguu yimi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar miyaadan arkayn baa la yidhi kuwa bedelay nicmadii ilaahay waa islaamnimada nicmadii ilaahay bay kufri ku bedesheen qowmkoodina waxay ku fureen gurigii halaaga ayay ku fureen kuwa miyaadan arkayn baa allah leeyahy subxana wa taala islaamnimadu waa nicmo weyn oo cadiima oo ilahayna u galladaystay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina baa ilahi yidhi subxaana wa tacaala maanta waxaan idin kaamil yeelay diintii baan idin dhammaystiray nicamtii baan idin taam yeelay iimaanka
iyo hidaayadda iyo muwaafaqada diinta lagu waafajiyey iyo khayrka ilaahay ku siiyey waa nicmo weyn oo cadiim ah waxay u baahanaysaa nicmadaas in la ilaaliyo waxaa allayna siiyey oo ummadda alla siiyey amni iyo nabadgelya la haystaa nabadgelyo ayaa dalku salmigu u fadhiyaa ummaddu waxa way iska dhacdhacayaan qabaa'ilku yacyaacay waa la helayaa intaa way iska dhacayaan laakiin si guud ummaddu barwaaqa nabadgelyaaba haystaa ladnaan ah ay ku soo tooriso marka meelaha waxaa ka dhacaya meelo badan aad maqlaysaan oo aad la socotaan nabadgelyadu waa nicmo weyn oo cadiim ah oo u baahan in la ilaashado man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yawmih fakaannamaa xiizat addunya kaannamaa xiizat lahu dunya bicadaafiha uu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka waa bariistay nabadgeliyo isagoo ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo gurigiisa ku nabad galay waa bariistay caafimaad qaba oo jirkiisu fayow yahay maalintaana dhadhamadii iyo quudkii wuxuu ilaa haysta adduunka oo dhan loo soo hogaamiyey oo gacanta loo geliyey ayuu ka dhigayay wuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nabadgelyadu wax sahlan maaha nabadgelyadu waa tii nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nimankii quraysh ahaa markii waxyuu ku soo degayey loogu gallad sheeganayo oo allah leeyahay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu annaasu min xawlihim afa bilbaaطili yu'minuun wabinicmat illah hum yakfuruun inaanu dejinay xaram ee ay ku nabadgelayaan waa quraysh oo meeshay tagaan safraanba oo ay qabtaanba way ku nabadgeliyeen oo birmagayday ahaayeen waa jiiraan alxaram baa la odhan jiray liilaafi quraysh iilaafihim rixlat الshitaa'i والصayf falyacbuduu raba hada الbayt aladi aطcamahum min juuc waaaamanahum min khawf waa nicmo weyn bayd waxaa ummaddu haystaa dhibaato badan baa la soo maro abaarha laga soo doogo laakiin waa laga soo kawday oo ummaddii barwaaqo iyo naxariisna waa u daaday nicam badanna way haysataa oo raqadulcaysh iyo barwaaqo iyo dhaqaale hanti waxbaa la haystaa dadku waxa weeye ninba waayihii waa la ladan yahay marka la eego ummadda aynu u fiirsano waa wax u baahan in la ilaashado waxa ilaahay ku siiyey maana inaad ilaashato oo wax ilaahay raalli ay ku bixiso oo ma ilaahay raalli ka yahay maaragtay ay kaaga baxda lacagtaadu waan ciqaab kugu noqon iyo halaag waa ta loo baahan yahay oo allah subxaanahu wa tacaala tusaaluu bixinaya dadki ilaahay risqa fiican siiyey oo nabadgelyada khayrka isugu daray lanaantiina hayn waayey meeshay ku dambeeyeen wadaraba allahu maalan qaryatan aaminatan mudmainatan yaatiiha risquhaa ragadan min kulli makaan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun baa la yidhi subxana wa tacala tusaale ilaahay yara magaalo waa maka ayaa la yihahdaa marka tusaale la bixinayo laakiin cibraduse waa cumuumkeeda weeye waa magaalo qaryo ah oo degan oo aamin ah way xasiloon tahay way degan tahay nabadgelya loo fadhiyaa risiqa iyo waxay cunaysaana wuxuu ga imanayaa jiho walbuu ka imanaya ummadda saasaa waddooyinku u furan yihin waddo kastaa furan oo dhaqaalu ka soo gelaya oo baabuurta dharka wadda iyo raashinka wadda iyo badaha iyo xeebaha iyo walaamiyada iyo hawadaba ka soo gelaysa xoolo ka soo gelayaan nicamtaa ilaahay siiyey bay nicamtii hayn weyday fakafarat biancumi illaah wixii ilaahay ku galadaystay bay jaxdiday oo diiday markaasaa ilaahay wuxuu ugu bedelay faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun waxaa loogu bedelay hugii gaajada ayaa la huwiye iyo hugii khawfka iyo baqdinta ayaa ilaahay geliyey oo markay barwaaqada meeshay ku haysteenna gaajaa looga dambaysiiyey amnigii iyo nabadgelyahay haysteenna baqdin baa looga dambaysiiyey waa tusaale allah subxaanahu wa tacala qur-aankiisa kaga warramayo sidaa darteed ba waxay tahay bal intaynaan qodobadaa ka hadlin cumuuman macaasida iyo dunuubta ay dadku basharku ay ku dhacayaan waa waxyaabaha keenaya halaagooda iyo dhib badan oo aanay markaa wax badan ay ku waayaan macaasi ee dunuubtaa keenaysa oo ibliis baa u horreeya waxa khilaafa isaguna barwaaqadii jannada ee uu ku jiray bannaanka looga soo saaray
markuu khilaafay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa oo ummadaha qur-aan ka warramay dhammaantoodba oo rususha loo soo diray qowm nuux qowm caad qowm hamuud waxa weeyaan qowmka faraha badan ee ilaahay taariikhdooda qur-aanka ka sheekeeyey markay dunuub ku dhaceen oo gaalnimadu kawa ka ahaatee qolo waliba dunuub iyo macaasi kaana way ku laraysay baa allah subxaanahu wa tacaala baaba'shay oo waxaa ka hadhay sheekooyin laga sheekaysto iyo warar qur-aan ka warramaya saasay ahaan jireen taariikh halaagoodii baa ilaahay ka warramaya say u baaba'een fakullan akhadnaa bidanbi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قرب اسمه إلهي هو السماء نجح لك سود هذه هو نوك للقوي هو بي لوها فيي هو الله واقعي وهو وحاس وحي قلب صدين يا ذنوب تيقلين يا حماي السمايين بإليس أوقل سبحانه وتعالى إلهي كما كرترين وحيابها قرآنك يا تاريخ ذي كور رميسو وحا ذنوبته أي كينيسا وحا إلهي كسيادة يستين نعمة أي رسول شيء إننا دويدو وقعنت هذا يكبحضو أي معاستان يوحن لقراعي الدربانا يا هيسان يا ميوسيقان يا اختلاط كان يا وحن صعدا مريهدو يا ثمرده وهلاك لو هذا نعمة يا خيرك يا واحد الله يستو رسول كني بينه شيء محمد صلوات الله والسلام عليه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه أدونك رزق لو سوى ولا سيل لها وحلقة حرمية ذنبي وقال يا رسول كني صلوات الله والسلام عليه ذنبي وكل عي بوكوية إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم ورداء النعم هيسطه وإلهي وحكسية خيرا نعمها إلى شو معاصد نعمته الزولسة والواية نعمته وعلى تاريخ لصومري يا خلق أدونك عمري يا لحاد يا أود يا مال هيستي قرآن وحكشة كيي مركز إلهي كان نحافين إن الله سبحانه وتعالى واسي مع أساس وحكير سهلاك ومضوا بعضه والنبي الله محمد صلوات الله والسلام عليه ما نبغى وحوصه قري زينب بنت جحش أيوة صوكري أم المؤمنين يسوى نحسن رسولك أرجع حسن مركز وحوري ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مركز وحيت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حديث البخاري مسلم يوريه هلاك با عرب سقناتي وهلاك با عرب سقناتي مركا عربتو ضدك مركا إسلام كيستبع هان حلقا مركا هذا أو شيء رسولك ووقتها بيني ما يا هيد ورسولك صلوات الله والسلام عليه وكور رمي فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج ياجوج يا ماجوج كلا حري ودad shar badan aha shar badan oo fasaad umadayna fasaadiyaan laga baqay ba meel bay ku xayirayeen in yaajuuj wa maajuuj mufsiduna fil ard fa naj'al laka kharjan ala an taj'ala bayna wa baynahum sadda wa qol khatar ah oo umada fasaadina meel baa lagu xayiray way xayirayeen laakiin fasaadkooda mar baa la soo dayn doonaa marka rasuulku wuxuu ka naxay u baqaya umadatan ياجوج يا ماجوج إلا بسود دايو وفساديان وما طبعونا حيا رسولك إلا فسادي ولا بلنبالي ولا باياريو بوكا بغيا مركا صولك يا فرتو يسكو قبطو انتا إن لغو ضلالة أيا لغا فري ماشي محاهم كوري سدكي كو عدنايين كو حي الرايين مركا ساو حي تيري رسولك إلهيو ميانا لهلاقيا وفينا الصالحون تذكي صالحين تها وحاجرة صالح يا مصلح باكل جرا صالح وانك اسك عبادي سنيه اسك ورديه يا قران كيس اخر سنيه اسك تكري صلاه الليل كيس يا قران كيس وردي كيس اسك وتا افك اسك خديا هادلay oo munkarka halka inkiray oo dadka wuxuu sheegaynin ka iska wardiyay miskiinka ah marka rasuulku kaas xubad baadi maayo
ummadda hadday wardiyayso qolo yareer ku shibirawaaqlanaysa ummadda mashayaatiina ummadda fasahaadinaysa oo wax ka hadlaya iyo wax ka qabanayaana jirin wala ishalaagaya oo rasuulku wuxuu yidhi nacam haa idaa kahura alkhabathu xumuha hadduu bato xumaantu hadday badato waa la ishalaagaya baa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin haddii muslixiin la helo wuxuun markaa in la helo maxaan ku waxa la yidhaahdo nabaadina xidh ay noqdaan nabaadina xidhka ma taqaanin wuxuun ummaddu ay noqoto ummad waxoogaa la arba cunay oo la nabaadina xidhay cid hadlaysa cid munkarkii wax ka beddelaysa cid shaqaynaysa oo arrinta ka shaqaynaysa khayrka oo xumaha la baaxaadeg